dibadda ka hadlaya ciidamadaas dhulma soo weerarayna leh waxaas waxay naga aqbalayna ma waxa weeyi war ciise waa ciise laakiin haddaad waxa aad sheegaysaa aad fulisiin oo deegaanka soo weerartiin laba ciise noqonayna inaga soo tagay waxba dadku weef anigu waxaan nahay nabad cid baa jirta meelaha ka tatasha oo waxbaan sameynaa tirada kuma jirno cidda naga mid maaha waxna matalena maaha waa cid meelaha horaasada fadhide oo sheegana waliba kulan warbaahineedkan ay ku qabteen deegaanka Gaarisa ee degmada Lughaya odayaashan iyo waxgaradkani ayaa waxa ay jawaab kulul ka bixiyeen odayaashooda ah oo dhawaan shir jiray ku qabtay deegaanka ka baxsan xuduudaha dalka waxaana odayaashan ay sheegeen in midnimada iyo amniga gobolka Salal iyo guud ahaan Soomaaliland ay tahay lama taabtaan isla markaasina ay difaacayaan waxaana hadaladoodu ay u dhignaayeen sidan oo magacaygu yahay Aqli Yaxya Axmed Amare degmada Gaarisa waxaan ka hadlaynaa halkan in afka Ciise ku hadlayno wadanka joogno waa wadan nabadeed waa wadan colaad hore u soo maray laakiin aanan arki karin imika anagu waxaan nahay nabad cid baa jirta meelaha ka tatasha oo waxbaan sameynaa tirada kuma jirno cidda naga mid maaha waxna matalena maaha waa cid meelaha horaasada fadhide oo sheegana waliba nimana matalaan waxa weeyaan wadanku dagaal ninkii galaa garanaya horaan soo marnay anagu waxaan nahay dawladda Soomaaliland yar aaminsanahay Muuse Biixi Cabdi isagana ag taaganahay hadii yar jeer ba isagana ag taaganahay nabadna waan ku ag taaganahay waxa la sheegay wax anaga naqoseeya aan ka midaysanay aan ba mid ka nahay maaha mana yeelayno mana yeeli doono odaasha aan ku sheegay soo hadlay waa qura xaq ka soo hadasha Djibouti meela asida ka soo hadasha oo dagaal ma qaadina ina galgeel leeyahay ina ali duula leeyahay halka raasada fadhiya anaga noo yeedhan waan diidnay waligoodna ma yeerayno kamidna ma noqonayno kamana mid noqon doono waxaan nabadahayn rabnaana ma jirto dawladda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka madaxweynaha waan aaminsanahay hadday qadda waan la qadaynaa hadday waxasho waan la helaynaa kuwaas dagaal bay wadaan oo halkan bay doon in dagaal soo anaga noo yarayaan tujuur inay halkan dagaal ku soo qaadaan xaaska dhaxwaan ku soo qaadaan mana yeeli doon xamastan halkan joogno doon in dagaal ku soo qaadaan oo doon in la galo kan joogno waxa weeye waa tuulada Gaarisa ee degmada Lughaya weeye nawaaxiida degmada Lughaya tuulada Gaarisa iyo degmada Lughaya dhammaantood intaan ka war hayno waa nabad weeyaan waxa weeyi waxaan maqalay oo iskugu nimadnay maanta halkan suuq duqeydda iskugu keenay hadalana soo gaargaaraya oo miidiyahan ka dhageysano hadalada miidiyahan ka dhageysanayno niman beesha u dhashay oo wadan kale jooga wadanka jaarkeena Djibouti jooga ayaa hadal soo furtuuray runtii waan ka xumaanay kelmada aan ka xumaanay ayay miidiyaha marayaan markasta ka hadlaan والكلمة هاي كهذا عقل حسين محوها عثمان علي الدولة يا نيكلا لدينا قال قيله وحوجه لهانت واقع معنا وحاسي وحبيش أي كم ذي سنتهاي ماها وحن يلا إننا ماها وحن يلي دوننا ماها نبض وحكفي عن نكهية يسقى شيء دونا ولن دونا نبض وحاسة كفي عن والنبض وحكفي عن المجد وحوجه عراض وانصوم الري waxaan dagaalamayna waxa 5 sano dagaalamayay wixii ka dagaalamayna waan helay dawladda Soomaaliya Soomaaliya ma doonayno waxa dagaalamayna waana aaminsanahay midnimada Soomaaliland cidda ka xun waan ka xunahay jiritaanka Soomaaliland inta cidda ka xun waan ka xunahay cidii ogol jecel waan soo dhaweynayna waxa weeji war waxaan markaas sheegayaan ku aflagaynayaan dawladda waxaan yeelaynaa maaha wax dagaalamaysan yahayna maaha واحد دجان كي يبرش وقال هنا ماها واحد دجان ذا اللقية دجان السيلع لبضوا وقال هنا ما دجان السيلع وذياش يدي واي هالليل تلو هاينا ما تأنا كجوم لو كهاللينا وحاسب وحنا وقال هاي ما وحويجي هذا وحيان مكاس ميسك والله هذا كهي مادان بيش الدحي مادان أنا جاو كفارة قاضينا أنا جا حكومة دهور جينا هالشيغان وح حنا الشيغان إذا وح كخلطن هنلو شيغان هاي مادان دلك وقع سوق جلان هالجوين السوق جلين نمام التلال دين سوق لين دلكوجا ودلكوجا واحد مارك لكا الوريجيان
هيشيجي ويان وحاس وحن أجنهي ما وحن كأقبلنا معها وحن كل راعينا معها وضك النبي الجليدة وحمارك تي الأقدقاي مج يقولنا ما راح وعي كير هذا وحبنا ومية الآن اللي كان ديق له ينهارو كي ديق له الصبح حلو الصبح المحيي هاي واحد دونا يا المحيي هاي والوضن كوانا بدوي حكومة ده وان تقنو وان هور تقني مدحوينا وان هور فريسني وحبنا نقوم الديدي حلا وحان ودي سنة ونو قلاضي حلا وحان ودي سنة هذا شغالات هاي هذا مدحت هاي لما ونو قلاضي waxay rabaan muxuu yahay waxa ka maqan muxuu yahay ma wax labada nin oo ka maqan ma wax la cabadayaan bar waxa weey dalkan maanta wuxuu u baahan yahay dibodis dalkan maanta wuxuu u baahan yahay maalgelin dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid la qaala gashatay waa idinka diin Ismaal Ali Duulo waxa si gafka maaha waxa wax beesha aad lagu hayd maaha waxa wixii lagu idlabay maaha ka baxawlaha hadii wax ka qaldan yihiin annaga ku sheegay soo noqo soo galo dalkan noo kaalay soo horeyso waxaan salaamayaa madaxweynaha xukuumadda Muuse Biixi Cabdi markaas ay yiraahdaan mucaarad baan nahay markaas ay yiraahdaan dawladda Soomaaliya nahay war dawladda Soomaaliya tii aan ka dagaalanay ka gooni weeyaan dawladda Soomaaliya tii aan ka dagaalanay weey tii calanka ka soo goosanayeen Soomaaliland gaarka uga go'day weeyaan tii wiilasha ay ku dhamaadeen weeyaan tamaataad wadaan maxay tahay kala weynaysan maxay tahay wartaa wariid ka diino ma ogolin waxa weeji Soomaaliya iyada is cunaysa يدي بايس لمايسي سومالي ذا ياريسي يدو ما نبض باه تاج لمايسي يدي بكرة تاقن ويان ما تدلك الصومال لو نبض وادل لقو السيحضو وادل نبدقليا لقو فردو وادل نماذيد وادل ولكن والله تقوتقين يا دن والبا سياسيين بك جيجتو والله تقوتقين يا وانا اركينا ما اقولين عيتا تقوتقين يسا دلك ياغا يد ولد يدا عدي تقوتقين يسا ما اقولين وان كحنحي مرنا كأقلان ماينو waxa weey waxaan leenahay nimankaas walaalaha ee dibadda ka hadlaya ee ciidamada kullu ma soo weerarayna leh waxay naga aqbalayna ma waxa weey war ciiso waa ciis laakiin haddaad waxa aad sheegaysaa aad fulisiin oo deegaanka soo weerartiin laba ciisaan noqonayna inaga soo sheegay waxbada soo weef cid kale wala inoo doonimaayo inagu aan isku dhamaano marka sida beelaha kala dahan noqono marka sida aad doonaysiin ciidamada dalka soo galiya sheegaysa ma garanayna anagu ciidamada deegaanku iska diiday labada degmada saylac iyo luqaya diideen haysiin meesha ka keenaysiin annagu ma garanayna haddaad ciidamada cirka ka yimid aad dhulka ku soo weeraraysiin waxa hor joogay soo weerartay waa ciise cid kale soo weerartay lama jirto waxa weeye waxa la ogolahay ma aha war dalku maanta dhaqaale u baahan yahay diblis u baahan yahay ninkii wadanka labada gobolka doonaya dibliskiisa dalkaaga ilmo kaale dhis dalkaaga kaale ka muuco dalkaaga sharaftiisa kaale muuji laakiin waan burburinaya waan baabi'inayaa saddex wallahi mar laba inaga aqbalay anigoo garaad farxaana garaad ka beelaha qurux jooga halkan waxaan kaga hadlayaa baaqaygu oo degmada Luqaya hadaan nahay gaar ahaan geersa waxaan ugu baaqaynaa ummadayada waxaan ugu baaqaynaa inay nabad adkayso naaf Soomaaliyada leh aan ku joogo nin kale oo meel ka soo hadlo gacanta haadiyo ciyaalkiisa meel nabada kaga yimiday ciyaalkeena inuu colgaliyana ma ogolin hadaan oo qashinahay dejiyo u baahan mid aw maxaan ku dhaday cidda dhawaaqyada meelaha dhaadheer ka soo fidinaysana sida ay soo sheegeenba waqaasha horiba ay soo sheegtay sidee ay u sheegeen baan u leenahay raali kama nihin annagu dalka nabad baan ku ognahay nabad baan maxaan ku dhahdaa la doonaynaa had iyo jeerna la hariiriyo joognaa marba xukuumadda xukumaysa haysa horta sixirun sheegu sixiru ka daran yahay sixirun sheegu sixiru ka daran yahay leeyahay halkani annagu waxaan nahay dawladda dadweynaha beelweynta ciise haddaan nahay waxaan ku baaqaynay maanta waa nabad ma ogolin wax carqalada amba khalada amba dila amba dagaal oo soo gala waddanka Soomaaliya haddaanu nahay beelweynta ciise waxa weeye nimankani la sheegayo xadka Soomaaliland baan jooginay xad kale hadal laga soo turturaya sixirun sheegu sixiru ka daran yahay wax faa'iido ah male kuwaasi haba yaraatee waxaana sheegayaana waxba kama jiraan annagana waxna khuseeya ma aha haddaan nahay indheer garad haddaan nahay odayaal haddaan nahay caaqiliin haddaan nahay dadweyne warka ay wadaale wax ciise weyne khuseeya ma aha nabad iyo caana wax ka macaan
warheedhe nin dhiman iyo nin wuxuu andhu kama joogin mooyaane waddankan aan joogno wixii ka dhacay waa kii looga ismaan cali duule malaha berigay ee dhabarkaaba lagu soo malaynaya sambadheertooyadu ku duubnaa wax alla wuxuu ahaa anu ma garanayo ninka ibeka hadlaya ee la sheegayo wixii waddanka ka dhacay uu ogaa geesiyaashii la dhashay iyo kuwii dhalay baa lagu goblobay halkan ku aasay dagaal bay ku dhintay maanta annagoo ilaahay naga fadilay wixii nabad iyo caana ku seexanay waddanka Soomaaliland nabad iyo caana ku joogna dawladda Soomaaliland haysana madaxweynaha iyaga Muuse Bixina ku kalsoon wax alla wax arqalada oo aan ka aqbali karay ma jirto mana ogin mana yeeli karo ka maqan yihiin oo ciisi haday jirto oo waddanka Soomaaliland ka maqan oo waddanka kale joogtay nabadgelyaha ku timaada miiska wada hadalka waxa alla wixii ka dhiman ha sheegan waa loo yeelayaa madaxweynaha Muuse Bixi uu fulinaya kii ku tiri ku tan wada ee faa'iido lahayn wuxuu qabanaya la jirin hadallada xune si xun sheegaaw koolaha ka tuurayo ee faa'iido ku lahayn ha ka deysto waddanka gaarisa waxa weeye waa meel nabadgelyo ah waa meel waxa weeye la isku yimaado waa meel waxa weeyaan horumartay waxa weeyaan bariyahani hadallaan maqlaynay oo ka maqlaynay rag kale waxa weeyaan gaarisa waxa weeye nabadgelyo waddanku waxa weeye wixii na soo marin walba u garanaya rag baa waraab cunayay gaarisa ugu dagaal badnaa maxay ahayd dhimasha ka dhici jirtay waxa weeye maanta nabadgelyada maanta aan hayno waxa weeyaan rag baa baabiinaya ragaasi waxa weeyaan rigaadada ha ka daayaan waxa la sheegayo ha ka daayaan gaarisa waxa weeyaan waa nabadgelyo beesheeda oo dhan dhammaan waxaan leeyahay anigu inta deegaanka oo dhan waxaan leeyahay nabadgelyo ha loo daayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye ilaahay baa degay meesha isagana haynaya hadduu la doorto maxay la soo doortana waxa weeyaan uu qaban marka waxa weeyaan ha loo daayo talada imika loo daayo madaxweynaha talada loo daayo fararuqa Soomaaliland laga daayo dhibaatadana ha laga daayo dadka xamaasta ee run moodaya waxa hadaladan meediyada la qaynayana ha iska dahalad kuwa walaal waa mid wax qabiili ma jiro dadka Soomaaliland